waad riyootay runtu waa maxay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواذا برنامج كيني وادريو تيرون توا محي حلقة تضواد ويان إن شاء الله تعالى. إلهي تخير كاين وافجيو رمضان تانا الله ينوفض يديو انت نوح لنا الله ينقع أقبل بين الله جعل وعلى كبرينا سينو بلنصانين حالي تولي عاوة إن شاء الله تعالى وحين نبلو بينا دورك حلقة ضي صوص صعدة إلى سؤاله أذن نسوي ديسين intaynu ka jawaabi karayno inaynu ka jawaabno insha allahu tacaala. su-aasha waan soo koobaya, waxba magac iyo sheegi bayno. su-aasha waxay ku saabsan tahay baynu sheegaynaa inaynu soo weydiiyey. haddii magaca dee lagu celceliyana waynu adigu wixii aynu ka sheegi karayno waynu ka sheegi kolba su-aashu siday tahay. markaynu ka jawaabno su-aasha waxa ku yara xeeran oo dhan intii aan kari karayo ama ka xasuusan karayo ama aan dee imaajin garayn karayo ama aan ka fekeri karayo iyadana insha allahu tacaala waynu kusoo dari doonaa taana haddii ilahay raalli ka noqdo. riyada ugu horeysa waxayna layna soo weydiiyey, qof baa wuxuu inagu yidhi waxaan ku riyooday anigoo xanuunsanaya oo jirkayga xanuunkay hayaana uu sabab u yahay baashan injirta loo yaqaano yaryada midmidoow ee qofka biniadamka dadka inta badan marka hore timaha ka geli jirtay. imka alxamdulillah inta dadku nadaafadu ay badatay wuxuu iska yaraaday. adigu injir baan ku riyooday inay jirkayga dhex cararayso anna inaan dilayo injirta inaan qabanayo dilayo ayaan ku riyooday. si aynu ognahay riyada injirtu wanaag baa lagu fasiraa. culimadu riyooyinka fasiraa ibnu shaahiniya naabulsi iyo keyrkoodba khayr bay ku fasiraan. laakiin dabcan dee arrintaasi khilaaf badan bay ka tahay. kolba waxay ku xidhan tahay aragtida aad injirta ku riyootid adigoo hurda. waxa weeyaan waxay sheegaysaa in dhaqaalo badan iyo xoolo fara badan inaad macaashaysid. marka qofka biniadamka haddii aad sidaadan oo kale aad ku riyootid adigoo xanuunsanaya xanuunkaagaasina uu yahay injir oo kale, waa bushaaro in ilaahay subxana wa tacaala caafimaad badan ku siinayo. waa bushaaro in ilaahay subxaanahu wa tacaala cimri dheer ku siinayo. haddii qofkaasi haddaba ku riyooday injirtaa dhex cararaysa uu macallin yahayna waxaa laleeyahay ardaydii waxaa lagu fasirayaa inay tahay ardaydii inay wax ka bartaan doonayay. ardaydii doonayay marka inay ka barato taas saasaynu taa u sheegaynaa. marka waxay kale ku dartay haddii aan dilayo maxay tahay arrintaasi. qofka biniadamka haddii uu ku riyoodo marka inuu dilayo uu dilayo jirkiisa cararaysay, hami baa qofkaasi u sugnaaday, xusni iyo muruga qofka biniadamka u sugnaaday. laakiin waxay caddaynaysaa qofka biniadamka in hami iyo qami u hayo oo qofka marka hadday riyadii riya injirtiya tahay oo injirtiina wax wanaagsan riya ahaan ay tahay, marka waxay bishaaro u tahay qofkaa riyooday in dhibaatooyinka iyo xanuunada noocaasa uu xal u heli doono. qofku markaa intaasaynu taa kaga baxnay. waxaynu ku daraynaa qofku haddii uu ku riyooday maalan in dharkiisa ay dul cararayso injirtu si gaara, qofkaas waxaa ku dhacaya waa la khiyaamaynaya. haddii qofkaasi imika adigagaas haddii riyada ay ku jirtay markaa ilaa adiga soo koobay ay ku jirtay in wax dhex cararayaan dharkaaga ay dul marmarayaan injirtu ay dul marmarayso, waxweyn waa lagu khiyaamaynayaa. qof baa khiyaamo kugu wada. haddii markaa qofku ku riyoodo in injirtii ay ku qaniintay, way dhacdaa qofka in injirtii ay qaniintay maadaama dhiigaagii nuugaysa ama ay ku qaniintay, taana waxay caddaynaysaa dad baa wax xun maaragtay ama ku xamanaya ama wax aan fiicnayn kaaga sheekeynaya. ibnu siriin hadda jeer waxyaalaha uu sheegay waxaa ka mid ah tirada injirta qofka bani aadanka uu ku riyoodo
waxay cadaynaysaa haddii aad qofku tirin karayo ama ku riyoodo in numberku intuu yahay midba ama laba ama saddexda inta waaqica uu qofku ku nool yahay dadka inta neceb ayuu numberkaasi sheegaya hadday shan injir ay noqoto shan qof baa neceb hadday 7 tahay 7 neceb kolba intii neceb ayuunbaa ay sheegaysaa taasi waxa weeye waa numberkay sheegaysaa tu kalena way jirtaa haddii numberka ama tirada ku saabsan injirtaasi ay tira aad iyo aad u fara badan tahayna halkaa waxaa ka cad qofka riyada ku riyooday shaqo wanaagsan ayuu helayaa shaqadaasi waxay noqonaysaa shaqo uu mas-uul ka noqon doono ama dad badan oo shaqaalaha u yeelan doono ama dadkan uu u shaqaynayo uu adeegaya ay noqon doonaan dad shicib ah مثلا wasaaradaha ka mid ah oo kale inuu markaa qofkaasi u fadhiisto oo maalin iyo habeen oo dhan uu dad u shaqaynayo ama uu dad wax u qabanayo haddii riyadu ay noqoto in number fara badan oo maalanba injirta ah oo qofka bini'aadamka madaxa inta koofiyadda tan xidhanahay oo dhan oo wada injira taasi waxay cadaynaysaa in arrimo culculus oo adag oo aad u xun ay qofka u soo socdaan intaasaan kaga bixi karaa laakiin taynintu amaynanku inuu soo weydiiyey waxa weeyaan waxaan xanuunsanayaa waxay dhex cararayaa injirtii markaa waxaynu ku nidhi waa dhaqaale iyo xoolo qofka bini'aadamka uu helayo haddii aan dilaya ka waran dilitaanka taalatirkeeda waynu u sheegnay oo waxa weeyaan qofka bini'aadamkii hami iyo mashaakil baa kusoo socda mashaakilka kusoo socdana waa mashaakil uu insha allahu tacaala uu qofkaasi ka dabaalan doono su-aasha ku xigta waxay leeyihiin shaydaan waxaan ku riyooday isagoo shaydaani eryanaya dhaqdhaqaaqayga iyo socsocodkayda oo dhanna uu daba socdo shaydaan riyadaas aad bay u badantay qofka bini'aadamka shaydaan ka fikiro shaydaanka qofka bini'aadamka riyada uu ku riyoodo fasiraado aad iyo aad u kala gedisan bay leedahay shaydaanka qofka uu ku riyoodo waxay calaamad u tahay in qof khiyaamo badan oo mukhaadic ah oo habaarqabo ah oo qofkan daba socdo uu doonayo qofka inuu dhibo marka wax weeyaan marba haddii shaydaanku daba socdo qof caadiya weeyaan oo doonaya shayaadiintu dibaba laba nooco ama waa shaydaan insiya ama waa shaydaan jinniya kii jinniga haddaan qofka jirin aanu qofkii dhacayno ama aanu u baahnayn caafimaadiyan aanu u baahnayn waa shaydaan insiya oo dadka inta ku xeeran weeyaan qofkaa riyooday waxa weeyaan qof baa daba socda way noqon kartaa waxay noqon kartaa qofkaasi shahwadiisa qof daba socda shahwadiisa uu yahay oo diin badan aanu lahayn oo habaar qabaa laftirkiisu ka riyooday laftirkiisa ayaa noqon karta in haddaanu diintiisu fiicnayn inuu macaasida badsaday shahwada badsaday isaga laftirkiisu uu yahay qof habaar qaba oon khayr lahayn كذلك وحيالها ما كتاين قف بين كامين توي نفسرني قف قدي وشيطان كريوضو تاسو حي عضينا يسابين نري قف كاسي عدو بولي هاي تبص عضا عدو قاسين ودبوا أيو الدنيا وحنو ربع عدو قاسين وقف كاسي خسارة وحو هيستوردن قف كاتي وينو فسرني إير بينو كدر درينا وحيالها عن كيف فكرنو أينو إير كدر الدونا لكن قف كان ريدي سون كجوابي شيطان ما كنت بصعده oo ku daba taagan shaydaankaasi waa cadow waxa weeye waa chaar buu noqon karaa ehel buu noqon karaa dhibaato noqon karaa qofka marka shaydaanka ku riyooda oo shaydaanku ka baqasiiyay qofka waxa weeye marka inuu islaaliyo waxyaalaha iska ilaalinaysa qofkaas waxay waa cibaadada ilaahay iyo taqwada rabbi subhanahu wa ta'ala dad baa culimada bal waxay ku fasiraan shaydaanka qofka daba socda aragtida shaydaanka caadiga inuu qofkaasi yahay qof xoolihiisa ribo ka hela ama xoolihiisa meelo xaaraana ay ka soo gasho kadalika waxyaalaha lagu fasiro aragtida shaydaanka tii hore waxaynu soo weydiiyeen dabagalka laakiin haddii qofku caadiyan bar shaydaan ku riyoodo waxyaalaha lagu fasiro in qofkaasi xanuun ku dhici doono ama mashaakil iyo hami badan uu ku dhici doono marka dambe inuu qofkaasi ka bogsan doono oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad siin doono qofka wanaag haddii uu ku riyoodo taasi aad bay u dhacdaa isagoo quraanka akhrisanaya in sha Allah diinta ay soo dhawaato ama meel ay ka istaagtay qofkaasi jin baa ku jira ama jin baa yani dhibaateeyay qofkaasi marka wuxuu baahayay quraan degdeg ay la saaro oo culimada inuu doonto weeyaan taasna aad iyo aad bay dadka ugu badan tahay taas haddaan intaas ka baxayna baan mulaynayaa mid kale mid baan ku dhameystirayaa taa waxay qofku dad waxay ku riyoodaan qofku isagoo shaydaanka la fadhiya oo wax ka baranaya oo qaliya warqad sita ninba maalin weydiyo wuxuu yiri qaliya warqad baan sitay nin buu qaliya warqad baan sitay buu yiri shaydaankii baan ag fadhiyay tabaytiro waxaan ka qurquriyeen ka dhageysanay waxaan ku yiri markaa bari sharaxo maxaa ku qortay inuu shaydaan yahay ama sidee buu eekaa wuxuu yiri geesuu lahaayo si fool xun buu eekaa markaa isu geeyay aqligayga markaa riyada waxaan isirun qof waxan waa shaydaan
taa waxaan ugu fasirnay qof kaa riyooday laftarkiisa beenaale ah oo dadka jecel inuu khiyaameeyo oo hadii jeer isku daya dhibaatooyin inuu ka dhex sameeyo saaxiibada iyo ehelka iyo qaraabada inuu saaxiiba ka dhex sameeyo ay u badantay taa waxay noogu xiga riyo kale waxayna leeyihiin waxaan ku riyooday inaan saytuun cunayo saytuunku markaa waa laba nooc Soomaalidu ma bay saytuun u taqaanaa laakiin saytuunka la soo weydiiyay waxaan u malaynayaa inuu yahay saytuunkan yaryare aynu saladka ku darsano saladka lagu daro yaryar greenka watini wa zaytuun kaasay markaa ama olive ka loo yaqaano kaasay u badantay inuu yahay waxaan hadii jeer waan cunaya dhow jeer baan ku riyooday buu yiri ama ay tiri hadii jeer waxaan ku wallahu a'lam intii horena Allahu a'lam weeyaan riyooyinka inta soo socotay inta horeba cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska leh og laakiin waa aqoonta basiidka yar ay bal isku dayay in maskaxda daawada qolalaha daawanaya in ablaha iyo nimada inaan u yara fudaydina oo wixii wax ka garanayno saytuunka cunitaankiisu waa arrin wanaagsan marba dad saytuun maqasho risqi baad maqashay marba dad saytuun maqasho risqi baad maqashay waliba risqi waasic weeyaan والتين والزيتون رزق واسع ويان قفك بنادى كي زيتون كسقو عني كل رياضة وعي علماء ذوي الأعضان قف كاسي درجة في عنبه هليا قف كاسي وحلالي وحي وكل ريوري أما وحو دريم كريني أما وحو شعلاو تيكسيني أما وحو دوني إنو النغضو انت بوحو لقف كاسي إلهي سبحانه وتعالى أكتيسو كهليا ريا وناكسو ويا رياضة زيتونكو أدي أدوا ساسا يمتعلى كل ما يسترني إيه ردان كدرو زيتون كاسي أدو يهمد مرأة أم بسلانين وحويان هدي سيتون كانت عنيسيد أما سيتون كانت أركيسيدي أدو يهاي ميدان وقتكي سيل عم بسلانين أو وقتي لو تلقى دانو قارين الكا وحكا قعد إن قف كاسي مشاكل فربضان وحكا دقالها يكون عدونان هموم فربضان إيو والبهار إيو والور فربضان قف كاسي يكون عدونتو تانا كاسي نكا بحني qofka xanuunsanaya hadii ku riyooday saytuun taas waxay bishaaray elektrikeedu tahay qofkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad uu siinayo saytuunku hadii waa kala badan buu leeyahay saytuunku haduu saytuun yalawa uu noqdo saytuunkaas yalawgii xanuun buu sheegaya kalarka yalawgii inta badan riyooyinka ma fiicna waa kalar geeri ama xumaan ama muruga sheegaya marka saytuunku kalarkiisu haduu yahay mid yalawa xusni iyo hami iyo qami baa jira marka qofka balaadka inuu ilaaliyo oo caafimaadkiisa ka shaqeeyo iyo mashaakilka sidoo uga baxsan iska ilaalin lahaa ayaa muhiim ah saytuunku hadii uu noqdo mid madow waa qofka arsaaqadiisa qofka riyooday risqiisu risq badan maaha waa risq yar weeyaan hadii uu cagaar ama green noqdo waxa weeyaan qofkaas arsaaqadiisu arsaaqadii aad u fara badan ayay noqonaysaa hadii qofku yiraahdo saytuunkii baan wali ku jirnaa qofka hadii ku riyoodo saytuunkiisa uga iibsanaya qof saaxiibkii oo wanaagsan oo ay saaxiib ahaayeen ama ehel ahaayeen oo maqayay qofkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala safarkiisa ayuu ka soo noqonaya hadii qof ay waxiisu yihiin xanuunsanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka caafimaad buu siin doonaa ama qofka war farxad leh oo badan oo wanaagsan ayuu qofka kaas insha Allah ta'ala uu maqli doonaa hadii qofku dhex meeraysan iyo dhex joogo beer saytuuna qofkaasi waxyaalo fara badan oo jeclaa oo doonay inuu gaaro helaya arsaaqad fara badan oo xagga dhaqaalaha laakiin tacab fara badan oo dhaqaalaha uu soo galaya mashaariiciisu markaa mashaariic naajixa ay noqonaysaa hadii Ilaahay uu raali ka noqdo taana saasan ku baxaynaa su'aashu way yartahay laakiin ana waan yaraa waxaan isku dayaynaa balbalaariyo waayo waxa laga qofku sidan uu sheegay oo kaliya inaan ahayn qof kale kuwan kale inuu ma sheegayno inuu sidaa kale uu fakaro marka mar walba waxaan isku dayaynaa intii aynu ka sheegi karaynay riyada laftirkeeda inaan ka sheegno waxaan ku riyooday dabayl xoogan oo roob wadata oo sida ii waday meel igu toortay halka hadii dabayshaas aynu ka qaadanaynaa waan soo koobay oo riyo waxa laga yaabaa dadka badba ma sha Allah yani 3 page ku soo qoray dad badan ba abitaat ma sha Allah Ilaahay ka kala booray qof laba layna malayn buu soo qoray dadka badina 3 page ama 4 page ya akhri karaya marka intaanu soo koobi karayno inuu soo koobnay dabayl baan inagu dhacday way igu soo noqnoqotay riyadaasi wili dabayl baa igu dhacday ama ay tiri roob badan bay wadataa xitaa heer bay gaadhay aniga inay dhinac igu toorto dabaysha riyada lagu riyoodo dabaysho waxay cadeynaysaa qofka bini'aadamka ka riyooday in isbedel fara badan qofka noloshiisa uu ka socdo laakiin dabayshaasi haday ku dhaafto iyadoon adigoo riyoonaya ay ku dhaafto iyadoon wax dhibaato ku geysanin waxay cadeynaysaa taasi isbedelada
iyo mustaqbaladaas waxyaalaha yani afkaarta iyo arrimaha soo socda mustaqbalka dhow inay xagga fiican ee wanaagsan ay u socoto haddii laakiin ay riyadaasi wax ku yeesho waxa weeyaan isbedelada iyo mashaariicdaada soo socota xagga xun ayay ku dambeynaysaa marka haddii aad qofka ku riyooday in dabayli culusi ay gebigiisaba yani dhibtay mushkilad ku samaysay qofka ninka ama qofka dumarka ah waa dumar وسعد ونويان وحويان قفكا ضغط نفسية برشر بقى قفكا فوريا عسابتي سلبات بدن كل عيسى نورشي سنة حسلوني فربضن قفكا سهيلي مايو وعليس فربضن بقى قفكا فوريا qofku marka riyada waxay wadatay riyadaasi dabayl roob bay wadatay inuu yiri dabayl roob haday wadato qofkaasi uu single yahay waxa weeyaan uu guursanaya oo caatifad fiican iyo guur wanaagsan buu qofka kaasi uu helaya si guud dabayshaasi ee walaag fara badan way leedahay oo akhbaar wanaag kadalka wax lagu fasirayaa oo kale in war fiican uu soo socdo oo akhbaar fiican aad helaysid oo akhbaartaasi arsaaqad fara badan sidaas leegay socoto انت سانك بحيا بالمرينية رياضة كصابسن الروبك هي طبيعة والصعدة قفك دورك منك حاسك لها ضغط فربضان يا عصا فربضان يا راح در رأي كل عيسى قفك على يسبدل فربضان مشيغية أخبار تاسي مرة أخبار ولا سبب نقول كرتا مرة أخبارنا في عينين طبيعة ساتين نقطة طبيعة المذو ما طبيعة إلهي نقبل بهذه طبيعة من المذو وبوري وعيدي وحوطة waxay cadeynaysaa qofkaasi inuu mashaakil fara badan leeyahay qofka riyooday dhibaatooyin fara badan baa noloshiisa ku jira mashaakil fara badan baa jira marka ilaahay waa inuu baryaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu caafimaad ka siiyo oo dhibaatooyinka ilaahay jalla wa ala uu ka badbaadiyo waa muhiim weeyaan kana saasaynu insha Allah intaasaynu kana kaga baxaynaa su'aasha ku xigta labadaas aylood baynu israacinaynaa intaynaan insha Allah ta'aala ka bixin bal su'aashaas un baan ka jawaabaya su-aashaas waxay leedahay waxaan ku riyooday in dab gurigayga dab qabsaday oo gurigayga qiiq ka soo baxay dabka lagu riyoodo qofka bani aadamkii uu ku riyoodo waxa weeyaan riyooyin macno fara badan leh bushaarana way wadan karaan digniina way wadan karaan dabka ma sheegin noociisa ma sheegin kalarkiisa yani waxa weeyaan si caam ah unba dabka u sheegtay marka qofka bani aadamka hadii uu ku riyoodo in dab gurigiisii uu qabsaday wataasi waxay cadeynaysaa in riyada dabkii waa khatar fara badan bay leedahay fitno ama dhibaato ayaa soo socota oo dalka iyo dadkaba ku soo socota fitnadaasina waxay keeni doontaa in dad badan oo saalixiin ama culamo ay ku dhintaan musiibada ama dhibaatada soo socota ama fitnada soo socota hadduu qofku markaa dabkaasi mid la arkayo hadduu qofku ku riyoodo dabkaasi inuu yahay mid qalbigiisa dhexdiisa inuu qofku gubanayo diqadoonayo taasi markaa waxay cadeynaysaa qofkaasi qofku jeclaa inay islaayeen ama laba qof isqabay ama laba qof guur ku ballamay ama qof iyo saaxiibkii isku fiicnaa waxay cadeynaysaa qofka marba haddii dabku qalbigiisa ka dhex ololayo uu dareemayo ma arkayo uu dareemayaa waxa weeyaan qof ay isku fiicnaayeen ayay kala tageen ama qof ay isku fiicnaayeen baa khilaaf dhex mari doonaayo way kala socon doonaan marka taasa qofka bini'aadamka ka xuyay haddii qofku ku riyoodo hawadu inay qabowdahay dabna inuu qiiqayo taasi waxay cadeynaysaa qofka taa ku riyooday in arsaaqad fara badan uu helayo aan soo koobo waxaad ku riyootay in qofka in dab gurigaagii ka qiiqayo oo qof gurigaaga gaarka ka qiiqayso taas si gaar adiga waxa lagu oranaya waa bashaaro khayrna way ku tahay shaqadaada dalaci doontaa dhaqaalihi xoolo fara badanna waad heli doontaa taasi waxay ka duwan tahay tii kale ee dabkii caamka ahaa ee magaalada meel ka qabsaday ka waxaanu sheegnay musiibo oo culamo badan iyo dad badan oo saalixiina oo wanaagsani ay ku dhiman doonaan waqtigii barnaamijka waxa leeyahay walaaluhu uu dhamaaday insha Allah ta'ala intaynu habeen dambe ku kulmi doono waxa ilaahay ka baraya khayr adduunya khayr aakhiro jannatul firdaws al'a ilaahay rabanta inaga aqbalo khayrna ina waafajiyo tibal habeen dambe sugi doontaan insha Allah dad badan baa sugayo salaada riyada ma ku xigtaay waxa la arkay wada jira yeelano insha Allah inta waan isku daynaa barnaamijkan intaanu dhamaanin wixii liina soo gaaray oo dhan ka wada jawaabno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah wadriyootay runtu waa maxay